Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha guriga xukuumadda oo xaruntii hore ee xisbiga oo lagu wado dib u dhis ballaaran. Guriga xukuumadda ayaa noqonaya xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo xarunta dhexe ee xukuumaddu ay ku shaqayn doonto. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa howlwadeennada ka shaqaynaya dib u dhiska xaruntaasi ka xog wareystay hanaanka u socota dhismuhu, wuxuuna kula dardaarmay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhamaystiraan si loogu guuleysto in xukuumaddu ay halkaasi ku shaqo bilowdo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weliso wasiirka dhalinyarada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sidoo kale kormeeray sida ay u socoto dhismaha garoonka ciyaaraha oo qayb ka ah xarumaha muhiimka u ah horumarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada. Dhismaha garoonka ciyaaraha ee Muqdisho oo hadda dhismihiisu marayo heer gabagaba ah ayaa rajo ku abuuraya dhalinyarada iyo bahda isboortiga ee higsanaya in horumar kala duwan ay ka gaaraan dhinacyada isboortiga. Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diiriye oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa ka warbixisay halka uu marayo dhismaha garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. Waxaan tagnay saakay garoonka Muqdisho Stadium xarunta dhexe ee xisbiga oo noqonaysa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. kormeerkan saakayna waxaa kacayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. dardargelinta dhamaystirka garoonka muhiimadda koowaad ahayd iyo xarunta aan soo marnay dhismaheeda iyo baaxadda meeshaas la eg oo aan horey xarun ahaan iyo garoon ahaan oo ahayd tuulada ciyaaraha Soomaaliya ama magaalada ciyaaraha Soomaaliya oo iyadana masaajid weyn uu ka hirgeliyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre oo muhiim u ah cadadka dadka meeshaas galaya waqtiyadooda. asagana dabaqii korea la saaraya oo intii dhismihii qaybtii ground floor-ka waa dhammaatay, masaajidka qaybtiisii hoose waxaa u haray qaybtii dabaqa. marka halkaasaan soo marnay alxamdulillaah, roogii carradiisii oo dhammaystiran iyo roogii cagaarna la dhigo haddii allaha awoodda la ogolaado. bishan hadda markii ay dhammaato waa gabagabo, waxaa ku xiga bisha Maars haddii allaha awoodda la ogolaado isbuuceeda ugu horeeya ama 10keeda beri ugu horeysa wixii ka dambeeyana saacaddii iyo kuraastii VIP-da qaybta ah ayaa imaanaysa. sidaasuu gabagabo ku yahay qaybta garoonka Muqdisho Stadium ama garoonka ciyaaraha Muqdisho, gaar ahaan qaybta kubadda cagta iyo orodada atleetikada loogu talagalay haddii allaha awoodda la ogolaado. aadaan ugu faraxsannahay in uu saakay Ra'iisul Wasaaraha shaqadii socoto uu tagay isagoo markii horena geed qaadisteedii iyo cawska gurusteedii horey u joogay markii ay ka qalab gurteen ciidamadii AMISOM ee waqtiga dheer deganaa. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.